waxaan soo dhaweyn doonaa oo aan rabnaa inaan u istaagno marka uu soo galayo gudaha hoolka suldaan muxyidiin suldaan odowaa oo ah suldaanka guud ee beelaha Akisho fadlan soo dhaweeya haye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي سيد خير كوشيرها نوافجيو كل كأننا كل خير لا الله كديقو. مركز كواد وحنا ما هذا ذو بالعروس وشيدين يا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إلها إن نمعذا النسيي وحنا ذو مهد عليا تيم كان قرب كيجا تاجن ومدير وكوبان وكديسون وصو شاقي سفي عن يجسو تشيدي aad ula tacaalay u sabray u dadaalay la kharash u bixiyay waqtigooda u lumiyay inay madasha suura galiyaan khilaaf kuma yarayn tuhum kuma yarayn dib kuma yarayn in loo calooladeego la isku sabro la soo dhaqaaqo meel la gaadho ayay suura galiyeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aad ugu mahadnaqayaa gabdhaha iyo wiilasha Akisho ee aanu kala harin haday kharash tahay iyo haday dhiirigelin tahay iyo haday booqasho tahay iyo haday xataa canjeero la soo duubo guriga la noogu keeno tahayba aad baad u mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin inta guud ahaan ka soo qayb gashay ee shaqooyinkoodii ka subaxay ee berri toolo oo ay shaqo tahay xataa u samree u fadhiya aad baan idinku mahad celinayaa mahadnaqa markaan ka gudbo waxaan aad u jeclaa horta potentialka aad leedihiin ama mugga aad leedihiin dadkiina xaggan jooga in si fiican loo xuso dadku qurba joog baa la iska yiraahdaa waxaan la kulmay horta dhul barwaaqo degantiin Allah idin barakeeyo diyaaradda markaa ka soo degayay dhulka biyaha iyo baadka yaala wana malaha beeriha xaga la idin geeyo ku fiicneed baan xoolaha aad ku dhaqataane haraha waxa la sheegay 10,000 oo leek inay ku yaalaan gobolkan aad buu qurux badan yahay dhul cagaaran biyuhu si fiican u yaalaan shaqadu taalo cidii shaqaysanaysa intii ka faa'iideysanaysa ka faa'iideysan karto ayaanu arkay waxa inta dheer oo arkay potentialka ama mugga aad leedihiin waxa aad suura geliseen diintii aynu islaamka ku ahayn oo deeq alla bixiyo ta ugu sareysa in aad maanta ilaalisaan ama goboladii aan soo mariyay ha noqoto ama kana ku soo dambeeyay ha noqotee masaajidada dhisan iyo madrasadaha furan waa wax nin kasta oo damiir leh oo qalbigiisu taabanaysa wallahi waxa ay suura galiyeen ma aha kaliya inaynu diintii ay deeqda alla inoo siiyay inaynu ilaashano waxa ay suura galiyeen dad fara badan oo qaar badan oo anu Jarmalka waan soo maray Faransiiska waan soo maray wadamo badan oo Yurub waan maray waxa aad kaga duwantihiin oo arkay dad dhalinyaro ah oo daadoodu aad u yar tahay 12 jir ilaa 22 ama 24 jir u dhaxeeya oo jid aad u dhib badan soo maray tahriib soo maray saxara soo maray dhimasho soo arkay rafaad ibn aadan inta uu maro intii ugu xumayd soo maray oo noloshaba aad mooday inay desperate ka yihiin inay u yimaadaan dad urursan oo diintii haysta oo masaajidadii jooga oo dhaqankii haysta dad fara badan bad badbaadiseen hadaad moosaan aad iska fadhidaan waxyaabahan observe gareynaya muddada yareen joogay badbaadaad u tihiin dhalinyaro fara badan oo hooyiya aabba ay muddo badan sugayeen dhowr iyo 20 sano la soo korinayay intooda badan laga yaabo inay jaamacad dhameysteen jaamacad labaad dhameysteen dhulkii nasiib darro weeyaane ayaanay shaqo fiican ku helin waxa hooyadoodii aabahooda ay ugu abaalgudaan ama iyaguba mustaqbal ay ku abuurtaan kuwa aan helin oo haddana tahriibka iyo rafaadka soo galay oo laga yaabo haddii aanay idinku aydaan ka soo horeyn oo idaan gacan qaban oo idaan dejin oo idaan sharci la raadin oo idaan shaqo la raadin oo idaan bulshada ku soo dhex darin inta ay lumaan oo masiibooyinkan socda khamri iyo balaay iyo xashiish iyo wax badan baa jira
nasiib darro fara badan inay tahay galaan kullu milhaabad badbaado u noqoteen dabeedna ay suura gashay inay bulshada ku soo biiraan inay qaadhaanka idinla bixiyaan inay masaajidada idinla bixiyaan idinla dhisaan inay xabaalaha iyo aaska iyo ku talagalkiina ka qayb ka noqdaan inay back home hooyo iyo aabba haddana dib u caawiyaan ehla caawiyaan dad jira noqdaan aad iyo aad wax weyn oo aad loogu farxo weyn qof kasta oo damiir leh potential baad tihiin mug baad leedihiin waxa intaa dheer waxa aad ama xaggan ka tihiin oo nin walba ku farxayo inaad siyaasadii ka muuqataan oo senatarada ugu sarreeya yeelataan inaad dhaqaalihii ka muuqataan oo moolasha iyo ganacsiga meesha ka socda aad mataqaanaa nin kasta uu ku farxayo dadku markuu dhaqaale abuuro oo economically ka dhismo siyaasad ahaan buu ka dhismaa magac ahaan buu u dhismaa mustaqbal ahaan buu u dhismaa diiniyan baa buu dhismaa waxyaabaha alla ka waxyaabaha dhibaatooyinka nabiguba ka alla bari jiray bay ka mid tahay faqrigu marka inaad dhaqaale abuurtaan oo siyaasadii ka qayb gashaan oo bulshadiina bulsho isku tiirsan noqotaan oo dhaqankiina nool yahay oo dameerkiina nool yahay oo dadkiina dhisan yahay wax aad loogu farxo weyn waxyaabaha aan ku sarfagareyay ee qalbigayga soo jiitay ayaad ka mid tihiin waxa inta idin dheer islaanta qoriga ishu ka galay taxanuunsanaysa dhakhtarka lagula jiro inanka hadda guursaday masiibooyinka socda waxaad u tihiin dadkii aad ka timaadeen garab baad u tihiin waxyaabaha ay Soomaali ku soo badbaaday waxa kamid ah isku tiirsanaantaas qaxootinimo la soo maray rafaad baa la soo maray hooya gaas iibinaysa taga yar oo muddo badan ku rafaadayna meeshii ku soo taariibsay u soo iibisay in dib loogu noqdo oo la caawiyo oo ehel iyo qaraabo la isku caawiyo oo waxyaabaha aad qabateen aad ugu farxsanahay wax badan oo kale oo qaban kartaan baa jira dhibaatooyin badan way jiraan qurbaad timaadeen dhalinyaro xumaatay baa jirta kuwa dib ka baxay baa jira kuwa dhalinyaronimadu qaaday baa jira ilaahay soo adeeyay ilaahay soo ganaajiyo inta xiran ama dulmi ku xiran ama dib u xiranna ilaahay ka soo daayo inta ubadku duco badan buu u baahan yahay dadaal badan uu u baahan yahay gabdhuhu intooda badan meel kasta oo tagto way ka muuqdaan akhlaaqdooda muuqata waxbarashadooda muuqata siyaasadda ay ka qayb galayaan baa muuqata damiirkooda muuqda dhalinyarta waxoogaa yar leexata dhalinyartana la hagaajiyo waqtiyada qaarkood oo soo maray koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxa gali jiray innamoonba loo yaqaanay maanta jaamacadaha qaarkood oo soo maro koowaad iyo labaad iyo saddexaad gabdhaad ugu tagaysaa ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay gabdhahayaga innamadana waxaan rajaynayaa inay ku dayasho badan mutaan oo ay sida galaan waxa marka wax qalqaloocda iyo dhibaatooyin marna lama waayo bulshadu haday adduunku straight line marayo tana jannadii ahaan lahayd aakhiraba looma baahdeen in adduunkan oo dhul rafa maro oo qalqaloocdo oo dhibaatooyin la kulmo waa weeyaan waxa alla baa abuuray adduunkan alla saahino hagaajiyo potential baatiin aad baan idinku faraxsanahay in yar waxa kale oo dardaar lahaa dadowga qaarkood iyo waxyaabaha qaarkood oo maqashaan wana dadku yar culuubay cadow iskuma noqdo gaar ahaan shacabku waa walaalo wallahi waa walaalo haddii ay inta deegaan wada degan waa walaalo siyaasaddu mararka qaarkood way keentaa in greed and grievance baa la yiraahdaa greed waxa la yiraahdaa qofku inuu damac badan galo uu wax badan diido inuu sii daayo waqtiga wax la qaybsanay walaalkii iloobo dabeedna ay grievance keento kii kalena calaa caliyo cabasho keena way keentaa laakiin waxyaabaha ay siyaasaddu sababaan waa muddo kooban miyaan mararka qaarkood laydo ku waalin inta dadka balaayo loo soo sheego in balaayo xaggan laga abaabulo social media waa la istaa mobilka yara xaggan lagu hayo balaayo abuurku maanta oo kale aad buu shaqeeyaa dhibaatooyin badan oo u geystaa magaalo uun ma joognay miyada markaan u baxno ee aan dadka beeraha u madaynayno in dhibaatooyin dhacay dhexdhexaadinayno waqtiyada qaarkood say u fududayd iyo maanta say u adag tahay waqtiyada arrimaha qaarkood waad yaabaysaa dhib yar oo niman dhibka aad u dareensanayn hadhowna aan dhimanayn wax saa u soo yar tuurtuura ayaa waxay keentaa beertii aad awal hore madayn jirtay iyo aqbalkii aad haysatay hay'adii aad haysatay intuba inaad kaadaan oo
intan is-ag joogta ee isku dareenka ah ee dhibka arkaysa keliya aanay taline ka Mozambique jooga iyo ka Minnesota jooga iyo ka Japan iyo China joogaba intay taliyaan taladiiba lagaala wareegana way dhacdaa niyo saameyn positive oo aad iyo aad u badan baad leedihiin arrimaha siyaasadda ama arrimaha muddooyinkoodu kooban yihiin ee kaysaska isolated ka ah yaanay damiirkiina intay kiciyaan dad badan isku rogine dareenkiina wanaagsan iyo waxqabadkiina tusa oo mararka qaarkood hataa isku dirka iyo dhibka xaggaas marar badan la idinka soo kiciyaa niyo intaad lacag yar urisaan sida sheegaysan imika iskuulaad dhisaan qabri dahar waan tagay qabri bayax waan tagay meelo fara badan baan deegaanka soo maray iskuulada dhistaan iskuula aad u qiimo badan weeyaan iskuulada dhisi kartaa niyo xagga ka wada waa sadaqa jaariya ceelasha la qodaa ceelasha xagga ka wada wadooyin baad xataa u jeexi kartaan ummadda oo waxyaabo fara badan oo positive aad qaban kartaan niyo positive ka aad xoog oo saara kaasa adduunkana iskiin jeclaysiin aakharana mansab loo noqdo iyo sadaqa jaariya idin noqon dardaaranka waan badiye raalli ahaada inta markaan xagga kaga baxo ta akshada aan dib isugu noqonay amaanta la amaanayay ma aha amaanuun runta markaad doonaysaan maslaxada iyo wanaaga imikoon kama talinayna Sayyid Maxamed Cabdullaahi Xasan markuu akshada joogtay hadaan uunka kala layn ya jidka adeer loo maray hadaan cidda uu la dagaalamay gaalay ahay cidda uu garabsanayna marka akisha hadaan uunka kala layn dad minis dadka kale aan la dagaalamo laakiin aksho la dagaalami maayo buu lahaa waanu aaminsanahay aanu idin faanay sheekhay kaliya kamaana soo bixin anagu sheekadii qiimaha badnaa ee diinta fidinayay akishada cawsla filla waa leeyahay gaala kaareen waa leeyahay gaala kaareen macnaheedu dad badan baa yiraahdo malaha cayow qaba may diintu markay fidaysay dad badan baa gaala ahaatay dagaalada waa laga soo noqdo waa la islaamay macnaheedu waxay ku tusaysaa dadka meesha loogu yimid waqtiga diinta la fidinayay ee loo sheegay anagu ma dadku badan yahay laakiin waan yar faarinaay anagana haynde marka dadkii gaalada ka soo haray ee diinta qaatay ayaa noo hayn that's why hadiye jeeraan ugu dardaarano si Soomaaliyeednimo u hadlayna dadku waa noo siman yahay hadda bulshada ka soo jeeday ee kasho cabashooyin aad u badan bay qabaan oo anigoo mas'uuli qaba inay genuine tahay run tahay xaq tahay haday tahay dhibaatooyinkii Bambaas ka dhacay qaabka loo wajahay iyo sida loogu xaalay arrimaha dhacay arrimo aad u foolxun bay ahayd qaabka looga daba tagay in yariyarkaadiya qaabka looga daba tagay ee xalkeeda loo raadiyayna ma saxsanayn runta marka la doonayo dilku qaabku u dhacay qalad buu ahaa tafriyaada badan la sheegay qalad bay ahayd deegaanka laga hadlayay iyo qaabka loo dhaqmayna qalad bay ahayd dawladuna way marxaati furtay laakiin arrimo fara badan waa loogu qaatay wax badan oo lagu hagaajiyay jiraa haday noqon lahayd dadkii dhintay magtoodii haday noqon lahayd yani raali gelinteedii haday noqon lahayd nabadgelyo raadinteedii wax badan oo wanaagsan oo la qabtay way jiraan wax badan oo tabanaynaana way jiraan waxyaabo yar yar oo siyaasadda aan idin sheegay afxabashiga gizaawi baan idhaahnaa muddo yar oo kooban soconayay dadka dareen kala galiyo way jiraan deegaanka wada degan aan waan qabaa dadku inaanu isnabcayn dadku deegaanka wada degan dad aad isku jecel weeyaan dad wax wada wadaaga weeyaan siyaasad laakiin saqajaana oo mararka qaarkood dad xamaasadaysan ama dhib wada ay wadaan waxyaabo badan ay ku qaldaan way jiraan waan rajaynayaa waxyaabahaas inay iska dhamaan doonaan cabashadu laakiin ma ahayn kaliya Bambaas haday noqon lahayd maamulo sii jiray iyo haday noqon lahayd maamulo iyo degmooyin hadaba la abuuray intaba lama hayo balan qaada way jiraan ka tagitaanka horaba waa qalad in maanta la hadalhayo Shariif iyo Akisha laga tagay Shariif iyo Akisha kaliya lagama tagin ma xusutay laakiin qabiilooyin dhowra oo cayiman oo laga tagay baa jira marka ay tixgelin noqoto ee parametriski la adeegsanayo degmo lagu dhisay ama gobol lagu dhisay marka ay degmadii buuxiyaan ee qabiil loo buuxiyo in marka hore laga tagaaba qalad bay ahayd oo dadkan loo tiriyo haddii se qaladkii la garowsaday oo la leeyahay in laga tago qalad bay ahayd haddana in la saxa ayaa muhiima waxaan qabnaa ballanqaadyo waxaan sir filaynaa aad u filaynaa
in wax lagu saxo haddana dardaarankayguu jiraa waxaan ku celinayaa akshadu waa dad ka xishooda inay dhibaatooyin ama buunbuuniyaan ama balaayo sheegaan iska dhaafay xataa dhibka ay qabaan inay sheegaan dadkiina maanta soo urure waxaan ogahay waxa dhammaanteen ka wada guuxaya dhammaan waan ka simannahay marka saa la doonayo waan cabanaynaa waan dareemaynaa dhibaatooyinka jira waan haddana ka xishoonaynaa intiina meesha soo joogsatay mid carrabaabay ma jiro qaabka ama loola dhaqmayo ama dhibaatooyinka ay dadkan tirsanayaan istil iyagoo qaba oo hoosta ka guuxaya oon aniga mas-uula meeshii ugu dhawade cabashooyinka iyo dhibkii soo gaadhayaan haddana intii hadlaysay iyo inta meesha fadhida intuba waa ka xishoodan inay yidhaahdaan ma buunbuunino balaayo aan jirin laakiin dhibaatooyinka jira haddii aanaan buunbuunin oo aamusno in tixgelinteeda la yeesho oo loo tixgeliyo oo loogu saxo ayaan inta aan deegaan la wadaagno iyo dawladdaba u soo gudbinaynaa kana codsanaynaa haddii sidaa la yeeli waayo waxaa la yidhaahdaa qofka waad riixi kartaa adoo ka xoog badan qofka waad riixi kartaa you can push a person as long as uu gidaarka soo taabto markuu gidaarka soo taabto laakiin definitely wuu soo noqonayaa meel baa jirta qofku marka uu gaadho ay noqonaysa marka dulqaad iyo wax walba inuu ka lumo ma jeclin meelaha qaarkood in la gaadho ku baaqi mayno sidii hadda ninkii u dambeeyey hadlayay sheegayay dagaal ku baaqi mayno dagaal walaalo waxba ma soo kordhiya isnac buu keenaa mararka qaarkood waxaanan garanaynba cidda lala dagaalamay aan dagaalana aan qoriga qaadana that's definitely wrong waa qalad dagaal looma baahna waxaad hadal iyo af iyo dood iyo cabasho ku heli karto dagaal maanta meesha ma yaalaba adduunkuna dagaalka uu ka sii tagayaaba dagaal kasta waxa ka weynba mobilka yara gacantaada saaranba maxaa qoriba kugu kalifi sabab dad loo kalifo oo qori loogu dhiibo oo kacay loo yiraahdo inaga iyo dadii kale midna ma jirto afba lagu kala goosay afka lagu kala goosan waanan rajaynayaa in tixgelinteeda yeelan oo sida aad uga xishoonaysaan eed u sheegi weydeen in hooska guuxiina iyo dibkiina inta loo aqoonsado oo dibka iyaga loo aqoonsado aan la gaarsiin dadka meel aanay ka soo noqon oon isnaco sii fidin ee dadka la isku soo dhaweeyo taas isku tanaasul ayaa wax lagu sameyn karaa kan greedka ee damaaciguna inuu tanaasul sameeyo kan grievancega ku jira adiga jeer calaacal kun wadaana inuu isna dulqaad iyo sabir yeesho oo wax waliba isbedelaan haddii dawlad laga hadlayana waqtiga qaarkood waan soo marnay anu aan wasiiraha Dr. Ahmed wasiiraha ubax wasiiraha daahir cilmi wasiiraha Ahmed Shide wasiiraha rag badan u soo maray baasha watalka la ayaam nudaawilha bayna naas ilaahay baa adduunkan isku isbedbedelkaasi wuu dhacay waanu iman imikadana waxyaabo badan oo tabaynaba jira suldaan baan hayaan siyaasi ma yihi haddana waan dareemayaa dadku dibkooda iyo cabashada ay qabaan marka ay waayaan meeshii ay mansabka ahayd ay gaarsiin lahaayeen inka ugu dhow carada lagula duldhici ayada lagula duldhici suldaanka kana waxba uu iska fariistay uu ganacsanayaa xagan uu tagayaa waxba nooma aha waxaasoo dhan baan ogolahay sababtoo waxaan ogahay meeshii mudnayd in lala hadlo dee dadku ma gaarsiin karaan anaa ag jooga marka waa in aan lagu cadha furfurto marka laakiin aan lagu cadha furfurto dawladda iyo cidda ay khuseysayaan u qaadanin in iyaga yani la reserve gareeyo loo jeedine iyaga loo jeedaa iyaga laga cabanaya iyaga wax la weydiinaya iyaga ay tahay inay ku baraarugaan sababtoo anuma miis wax lagu qaybiyaan fadhiya cidda wax laga doonayo waa dawladda cidda wax laga doonayo waa siyaasiga cidda wax laga doonayo waa inta mansabka miiska fadhida maanta marka dadku hadduu cadhoodo oo aniga ay soo gaadho macnaheedu cadhado aniga kaliya eege iyaga iyaga cadho badan oo haddii la gaadhayo la diiran lahaa weliba intaan la idin diiran dadka la soo gaadho waan odhan lahaa taasina aad baad u mahadsantihiin deegaankii baan ka imid ma wado warbixin guud oo dawladda kama socdaano oo waxaan qabanay iyo dawladdu waxyaabaha ay qabatay iyo wax u dhiman iyo wax kama warrami karo authority-geedina ma yihi fariinteediina ma wado deegaanka laakiin wax badan baa iska bedelaya wax qabad fiicanna wuu jiraa waxaan jecel lahay marka in arrimaha siyaasadda inta siyaasadda ha wato arrimaha dhaqaalaha inta dhaqaalo ha wato kalgacalka iyo isu soo jiidashada iyo wada noolaanshaha iyo ismarxabaysiinta
dadka intii deegaan wadriba in aad looga shaqeeyaan ku dardaarmaya taasaa dani noo ah diiniyan dani noo ah aakhiradeenna dan u ah adduunkeennana dan u ah way dhacdaa labada isugu dhow markasta in iskhilaafaan iyaga isugu dhow labadaa unba dadka iska yaqaano haddana dib u heshiiya ceeb ma laha marka in heshiiska iyo wanaagga iyo laga dardaarmo ayaa muhiima oo aan ku dardaarmaya hadalka waan dheereeyey haddaan warbixin israahdo ama wixii dhacay israahda ka waran caawa dhan ku kala seexan wixii sanada soo socday maanta oon idiin imid kuma dhammaystiri karo waan soo koobayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin xilli dambaan joognaa berri toole shaqaa jirta waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa idinka mahad celinayaa inaad waqtigiina u soo hurtaan ubadkiina ka timaadaan maanta aad meeshaa nogula fadhidaan ood farxaddaa nagu soo dhaweysaan aad iyo aad bay farxad weyn igu tahay waxaan tusaale u noqon doonaa dad badan oo kale oo imanaya insha allah xagga shaqada midaan idinku daree shaqada ma aha keliya in shilanka lagala soo baxo markaad xataa anoo suldaana waxaan u shaqaystaa waniga dadka in tusaale loo noqdaa fiican waa inuu qofku dareemi karo inuu isagu wax iska dhigo meel haddaan fadhiisto waan karaa oon idhaahdo soo dhiiba yaa suldaanku odhan karaa laakiin waxaan doonayaa inaan tusaale ugu noqdo ubadka soo goraya iyo ummadda kaleba qofku markuu isagu wax iska dhigo uu magaciisa iyo mansabkiisa iyo jeebkiisaba dhiso ummadda ilaahayna way ka nabadgeli isna waa laga nabadgeli isna wuu nabadgeli marka ma aha dad ganacsi isaga maqane waxaan jecelnahay intii aan qaban karno bulshada inaan ku dhex jirno u adeegno la shaqayno dhalinyartana iyo rag iyo dumarba aad baan idiin salaamaya intiina soo qaban qaabisay jazaakallahu khayr aad iyo aad baad mahadsantihiin allah idinka jaaysiiyo dadaal badan iyo mug badan baad ugu jirtaan ummadda ilaahay garabkiina ha galo ubadka iyo adduunkaba allah idin barakeeyo ciise iyo sharaf baad noo ii yeesheen kor baad ii qaadeen ilaahay kor idin qaado magaciina kor ha u qaado ubadkiina kor ha u qaado maalkiina kor ha u qaado magaciina kor allah u qaado ubadka iyo adduunkaba allah inoo hagaajiyo aakhiradana allah inoo hagaajiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin